habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka iyo cabdiraxmaan bidhaan wararka ugu waaweynina waxa ay yihiin habeen labaadkii ayaa rabshado ka dhacayaan Minneapolis kadib markii la toogtay Dawnter Wright oo ah wiil madow boolisku waxay sheegeen in aanay si ula kaca u toogan warbixin dheeraad ayaan idinka haynaa magaalada Minneapolis oo rabshado ka socdaan iyadoo halkaasi ay degan tahay jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed wararka kalena waxaa ka mid ah dalka Kenya waxaa laga bilaabay barnaamij dhalinta ku xidhaya dad waxbara oo haga si looga fogeeyo inay galaan dambiyada iyo fadqalalada waxaanu eegaynaa dalka Brazil nidaamkiisa caafimaadka oo isu bedelay bakhtiyaar nasiib iyadoo bukaanka COVID-19 ku ay qarqiyeen goobaha caafimaadka dhimashaduna ay kor u socoto isla COVID-ka waxaanu eegaynaa hab la doonayo lagu ogaado hidda-sidaha si loo yareeyo faafinta viruska kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkan waa BBC London caawiya caalamka Ramadan Kareem meel aad joogtaan baa waxaan ku bilaabayaa wararka Minneapolis waxaa la galay habeenkii labaad oo ay halkaasi ka socdaan mudaharaadyo rabshado wata oo ka soconaya magaaladaasi halkaasi oo ay isku jiireen booliska iyo dadka dibadbaxaya dadku waxay ka cadhaysan yihiin markii la toogtay wiil madow oo ay boolisku toogteen boolisku laakiinse waxay sheegayaan in sarkaalkoodaasi uu rabay inuu tiisarka isticmaalo ama korontada qalabka ku shaqeeya laakiinse ay dhacday bay yidhahdeen in uu baastoolada halkaasi ku isticmaalo oo uu dhinto ninkaasi madow isla magaaladaasi waxaa ka soconaya iyadana kiiska loo haysto askarigii kale ee caddaanka ahaa dilay George Floyd waa ninkii madoobaaye Junaidi Faarax ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyay ee Minneapolis waa habeen kale oo ay xaaladdu aad u kacsan tahay xasilooni darro ayaa laga dareemayaa wadooyinka Minneapolis taasoo looga falcelinayo dilkii ay booliisku u geysteen qof kale oo madow ah carada iyo jahwareerkan soo cusboonaaday ayaa daba socday geeridii Dawnter Wright kaasoo ahaa darawal 20 jir ah oo ay toogatay haweeney booliiska kadib markii ay u joojisay dambi yar oo la xiriira habka uu gaariga u waday muuqaalada kaamirada ay askartu xirnaayeen ayaa muujinaya waxa uu taliyaha booliiska ugu yeeray inay ahaayeen fal qalad ah oo aad u weyn waxaan aaminsanahay in sarkaalku damacsanaa in uu isticmaalo taysarka balse uu si khalad ah oo hal xabad ugu riday mudane Wright sii daynta degdega ee muuqaalada kaamirada ayaa muujinaya iskuday ay booliisku ku muujinayaan daafurnaantooda si ay isaga fogeeyaan wax dhaleeca ah uga timaada arrintan madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu daawaday muuqaalada naxdinta leh isla markaana uu filayo in baaritaan degdeg ah la qaado si loo ogaado in dilkani uu ahaa mid ula kac ah iyo in kale haba yaraatee ma jirto wax sababa amaba wax marmarsiyo ah oo loogu soo gaban karo in rabshado la sameeyo oo wax la bililiqaysto wax la boobo way jiraan dhibaatooyin dhacay oo aad dhibaato u keenay laakiinse marnaba looma baahna rabshado iyo bililiqo inay dhacdo iyada oo ay weli socoto kiiska maxkamadda askarigii lagu eedeeyey inuu geystay dilkii George Floyd ayaa haatan galaya gunaanadkii kiiska dacwadda waxaana maxkamadda horteeda maqaati ahaan uga hadlay George Floyd walaalkiis oo ka hadlay xaaladda qoyskiisa ay ku sugan yihiin sawirka idiin muuqda waa hooyaday oo aan haatan noolayn qofka la sawirani waa walaalkay iga weynaa ee George aad baan u tabayaa labadoodaba waxa aan guursaday 24 bishii May walaalkayna waxa la dilay 25 May hooyadayna waxa ay dhimatay 30 May ee isla bishaasi oo ay ahayd mid macaan iyo qaraar ah sababtoo ah waxay bishaasi ahaan lahayd mid aan ku farxo maalmaha soo socda ayay qareennada Derek Chauvin xeerbeegtida u soo gudbin doonaan difaacooda iyada oo dhawaana la filayo inay soo gabagabowdo kiiska dacwadda ayaa ammaanka maxkamadda iyo guud ahaanba magaalada aad loo adkeeyey xilli ay weli xamaasaddu aad u kacsan tahay dalka Kenya waxaa sii badanaysaa shaqo la'aanta dhalinyarada iyadoo la arkayo in dhalinyaro badan ay ku lug yeelanayaan falal dambiyo abaabulan isla markaasina ay mararka qaarkood ku lug yeelanayaan kooxo xag jir ah oo si ay isla markaas iyaguna u helaan nolol maalmeedkooda haddaba si
looga fogaado inay taasi dhacdo ayaa NGO ku taalla caasimadda dalka Kenya Nairobi waxa ay bilaabeen 5 sanadood ka hor barnaamij ay isku xidhayaan dhalinyarada nugul ee u baahan in la caawiyo iyo dad la taliya oo iyagu nolosha ah dadka ka gaadhay meel wanaagsan si loo yareeyo halista ah in dhalinyaradaasi ay ka qayb galaan dambiyada abaabulan. wariyaha BBC-da Rode Odhiambo ayaa warbixinta Nairobi nooga soo dirtay waa tan Bella Sheegow oo inoo soo jeedisa. kani waa cali wuxuu yimaadaa qabuuraha Kariokor ugu yaraan toddobaadkii 2 jeer si uu u booqdo qabriga hooyadiis. waxaan jeclaan lahaa in hooyaday ay noolaan lahayd si ay hadda ii aragto. waan ogahay inaan ku farxi lahayd markay ay aragto sida adag ee aan u shaqaynayo wayna igu faani lahayd. cali hooyadiis 2016 ayay geeriyootay wax yar uun kadib markii loo xiray ka qayb qaadashada dambi abaabulan. wuxuu ka mid ahaa koox dambiilayaal ah ilaa uu 19 sano ka gaariyay. isaga iyo dhalinyarada kale ee Eastland ayaa ka qayb ah barnaamijkan la talinta. mid ka mid ah hagayaasha Xalima waxay la talinaysaa laba dhalinyaro waxay kula talinaysaa halista ku biirista kooxaha gaangiska. midkood ayaa ku dhawaaday inuu ku biiro maleeshiyaadka Al-Shabaab. waxaan maqli jiray markii aad ku biirta Al-Shabaab in lagu siin doono abaalmarin. waan ka labalabaynayay inaan ku biiro laakiin asxaabteyda way ku biireen kooxdaasi. nasiib darase ilaa iyo maanta ma aqaan inay nool yihiin iyo in kale. Xuseen hadda waa nijaar wuxuuna seminaarkan u adeegsanayaa xirfadiisa sameynta noocyada kala duwan ee qalabka guriga. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarada ay ka fulisay gudaha dalkan. kumanaan qof ayaa ku dhinta oo mas'uuliyiinta waxay sheegaan in dhalinyaro badan oo kale si qarsoodi ah ururka u diiwaan geliyo. badanaa waxaa loo ballan qaadaa magac iyo lacag aad u badan maadaama intooda badani ay ka soo jeedaan bulshooyinka dhaqaalahoodu liito. xaafadaha sidan oo kale ah ee ku yaala Nairobi iyo hareeraheeda waxay noqdeen meelaha ugu badan yihiin kooxaha dambiilayaasha ah iyo ururada argagixisada ee sida Al-Shabaab. dambi baarayaasha ayaa ku dooday in safmarka corona uu saameyn weyn ku yeeshay dhalinyarada inay si aad ah ugu lug yeeshaan dambiyada abaabulan ayna u nuglaadaan ku biirista kooxahan. Linia Masuku ayaa sheegtay in qodobkan oo kaliya aanay adeegsanin. Kenya waxay ku lug leedahay Soomaaliya iyo iyadoo militariga ay joogaan kaasoo isku dayay inay Al-Shabaab iyo argagixisnimada la dagaalaan. haddii aan si guud u hadlana arrintan Kenya waxay ka dhigtay mid u nugul kooxaha argagixisada kuwaasoo isku dayaya inay howlgallo ka fuliyaan dalka. inkastoo uusan jirin xiriir toos ah oo ka dhaxeeya dambiyada iyo falalka argagixiso ee xagjirnimada laakiin barnaamijkan ayaa ka caawiyay dadka sida Cali inay noqdaan qof wanaagsan oo naftooda dhowra. wuxuu yiri Cali xorriyadda aan hadda haysto wax la siisan karo ma jiraan. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. hay-adda socdaalka adduunka ee marka la soo gaabiyo magaceeda la yiraahdo IOM ayaa sheegtay in 42 qof ay ku qarqoomeen kadib markii ay dooni kula degtay xeebta Djibouti 16 ka mid ah ayaa la leeyahay waa caruur. dadkii haddaba uu ka badbaaday ayaa waxay sheegeen inay doontu ku degtay badda bartankeeda markii waxoogaa ka soo socotay xeebta Yemen iyadoo ay saaraayeen 60 qof ku dhawaad. dadka qaxoontiga ah ayaa labada dhinac u kala socda qaar Yemen ka soo qaxaya dagaalka ka socda iyo qaar Yemen u sii maraya inay galaan dalalka khaliijka si ay shaqo u raadsadaan. midowga reer Yurub ayaa maanta go'aan qoraal ah ka soo saaray go'aankii shalay ee baarlamaanka ay muddada ugu kordhiyeen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday. waxaana ay yidhaahdeen tallaabada ay qaadeen dowladda Soomaaliya waxay wiiqaysaa dadaalkii dheeraa ee midowga Yurub iyo beesha caalamku u galeen sidii dib loogu dhisi lahaa Soomaaliya iyadoo loo marayo wada hadal iyo isafgarad. waxaanu ku baaqaynaa bay yidhaahdeen in si degdeg ah loogu laabto wada hadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin iyadoo lagu salaynayo bay yidhahdeen heshiiskii Sebtembar 17keedii. haddii taa la waayana midowga Yurub wuxuu qaadi doonaa tallaabooyin dheeri ah oo adag. waxaa la cafiyey 484 maxbuus oo ku kala xidhnaa xabsiyada gobolada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland. maxaabiistan oo ah kuwa dambiyada fudud ayaa waxaa maanta cafis u fidiyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo la sheegay in lagu beegayo bisha barakaysan ee Ramadaan oo iyaduna maanta bilaabantay.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa Israa'iil ku eedeeyay inay ka dambeysay hawlgallo lagu kharbudayay xarunta nuclearka ee Natanz. Javed Zarif ayaa sheegay in ay Iiraan sii xoojin doonto gacanteeda wadahadallada ay la leedahay wadamada waaweyn iyadoo dib loo rabay loo soo cusboonaysiiyay heshiiskii 2015 ee Mareykanku hore uga baxay ee ku saabsanaa nuclearka dalka Iiraan. Waxa uu sheegay in dawladda Iiraan ay sii casriyeyn doonto nidaamka bacriminta awoodda nuclearka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa magaalada Brussels kula kulmay xogayaha guud ee NATO iyadoo xiisada ka taagan tahay bariga Ukraine. Iska horimadyada ciidamada Ukraine iyo dagaalyahanada Ruushku taageero ayaa sii kordhaya. Ukraine ayaa ka digaysa ciidamada Ruushka ee la soo dhoobay xadka labada dhinac. Maraakiibta Mareykanka ayaa iyaguna waxay galayaan toddobaadkan badda madow iyadoo xiisada Ukraine ay taagan tahay. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali halkaas aad ka heli doontaan muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararka ugu dambeeya Soomaaliya iyo caalamka. nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. weli waxa inoo soo socda mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loola socdo welwelka ka dhashay in uu soo badanayo fayrasku. waxaanu eegi doonaa iyadana dalka Brazil oo iyadana cudurku aad ugu faafayo COVID-19. soo dhawaada daawadayaal weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka iyo cabdiraxmaan bidhaan balanaad xusuusiya caawa qodobada wararka ugu waaweynaa. habeenkii labaad ayaa rabshada ka socdaan Minneapolis kadib markii la toogtay Duante Wright. booliska ayaa sheegay in aanay si ula kaca u toogan wiilkaasi madow. dalka Kenya waxaa laga bilaabay barnaamij dhalinta ku xidhaya dad waxbara oo haga si looga fogeeyo dambiyada iyo dhibaatada.
axaddii aynu ka soo gudubnay waxaa 2 sano oo buuxa ay ka soo wareegtay markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Suudaan Cumar Xasan al-Bashir 30 sano ayuu dalkaasi maamulayay kadibna waxaa ku kacay weyn ogeen banaanbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo maamulkiisa banaanbaxyada ugu waaweyn haddaba waxay ka dhaceen xarunta ciidamada ee taliska ciidanka qaranka ee Suudaan banaanbaxyadaasi waxaa xoog ku kala eriyay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan golaha militariga ku meel gaadhka ah ee dalkaasi Suudaan aan iraade iyagoo adeegsanaya hubka culus noocyadiisa kala duwan iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa qoysaska reer Suudaan ayaa dad badan oo jeclaayeen haddaba halkaasi lagu dilay oo ku waayay waxaana la saaray guddi baaritaan sameynaysa in la xaqiijiyo sida dhabta ah ee wax u dhaceen laakiinse ilaa hadda weli hal qofna lama horkeenin cadaaladda oo lama soo bandhigin mawlid xaaji cabdi ayaa eegaya wararkii u dambeeyay Suudaan faadumo waxay muddo 2 sanaha sugaysay cadaaladda ku aadan wiilkeeda oo la dilay intii lagu jiray mudaharaad ka dhacay kadinka hore ee xarunta taliska ciidamada 2019 waxay sheegtay inaysan fahmi karin dib u dhac ku yimid la xisaabtanka dambiilayaasha fahamkaygu wuxuu yahay inaanay waxba qabanayn waxay sii wadaan inay dhahaan isbuuca soo socda kadibna bil laakiin 2 sano ayaa laga joogaa hadday ugu yaraan halkiis keeni lahaayeen maxkamadda halkiis oo shahiid ah waxayna siin lahayd rajo xanuunka faadumo waxaa la wadaaga boqolaal qoys oo reer Suudaan ah oo ku waayay eheladooda mudaharaadkaasi wixii ku bilowday mudaharaad nabadeed ayaa ku idilaaday dhiig qubtay dibadbaxayaasha ayaa dalbanayay in hogaamiyaasha militarigu ay xukunka ku wareejiyaan dawlad rayid ah laakiin dadkii fadhiga ku cabanayay waxaa kala eriyay ciidamo isku dhaf ah oo amniga subaxnimadii 3 Juun iyagoo adeegsanaya rasaas culus iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ugu yaraan 100 qof ayaa la dilay in badanna waa la dhaawacay boqolaal rayid ah oo aan hubaysnayn ayaa xabsiga loo taxaabay maalintaasi bishii Oktoobar 2019 dawladda ku meel gaarka waxa ay samaysay guddi baaritaan si loo hubiyo baaritaan madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo oo ku aadan wixii dhacay maalintaas balse guddiga ayaa lagu eedeeyay inaysan si sax ah u gudan shaqadooda ilaa arrinka kale eryadii banaanbaxayaasha iyo shuhadadii kacdoonka laga dhigo mid caalami ah mooyee wax cadaalada ma jiri doonto si kalsooni ku jirto ayaan hadda kuugu sheegayaa arrinkan guddigu si dhaqso leh ayuu u beeniyey eedaha loo soo jeediyey waxay sheegeen inay dhegaysteen in ka badan 3,000 iyo bar markhaatiyaal ah marka lagu daro dib u eegista kumanyaal dukumenti waxay sidoo kale xaqiijiyeen inay ka go'an tahay in dadka lagula xisaabtamo dembiyada ay galeen muddadu waa muhiim maxaa yeelay cadaaladda waa in la waafajiyaa laakiin waxa ka muhiimsan waa saxnaanta waxaan u baahannahay inaannu helno caddaynta aanu ku cambaaraynayno dembiilaha 2 sano ayaa laga joogaa markii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashir aas-aasidda guddi baaritaan waxay ahayd tallaabo la soo dhoweeyey laakiin qoysas badan oo reer Suudaan ah waxay dareensan yihiin in cadaalad aan loo helin dadkoodii ay jeclaayeen in ka badan 1 sano ayaa laga joogaa markii uu caalamka ku faafay viruska coronavirus imika haddaba dalka Brazil dhimashadu halkii ugu sarreysay ayay maraysaa waxaana jirta in nidaamka caafimaadka ee dalkaasi uu qarka u saaran yahay la leeyahay inuu gabi ahaanba burburo qalabka oksijiinta ayaa meelo badan ku yaraanaya oo ka sii go'aya qaybta gargaarka culus ama ICU-da inta badanna si fudud uma helaysid in sariir halkaasi la dhigo qofkii bukaanka ahaa ee aad watay waxaa jira haddaba walaac ah in tiradan badan ee sii badanaysa ee viruskaasi ay ka imanayso iyadoo imika dhalinyaro badan ay qaadayaan viruska oo ah nooca cusub ee loo yaqaano nashqada Brazil oo isagu la leeyahay waxa la isaga qaadayaa si aad u fudud taasoo keenaysa dhimasho gobolka São Paulo oo ah gobolka ugu qanisan wadankaasi ayaa in ka badan 500 qof ay ku dhinteen iyagoo sugaya in loo wareejiyo cusbitaal kale 3 toddobaad ee aynu soo dhaafnay si xaaladooda loola tacaalo Bushra Nuur ayaa eegaysa wararka Brazil iyo COVID-19 Renan wuxuu ahaa udub dhaxaadka farxadda qoyskan markuu 22 jirsaday ayuu aabihiis la furay dukaan lagu iibiyo biizaha wuxuuna qorsheynayay inuu waalidkiisu dhigo xaflad ku saabsan 25 sano guuradii ka soo wareegatay arooskooda balse waxa ku dhacay covid
helitaanka daaweynta ayaa hadda ah bakhtiyo nasiib. Renan iyo ina adeertiis Erika waxay tageen 4 isbitaal oo kala duwan 4 maalmood gudahood, laakiin cidina ma caawin karin. Wuxuu xalay ku hoyday kursiga curyaamiinta isagoo sugaya in loo wareejiyo qaybta ICU-da, laakiin markii loo helay boos waxay ahayd goor dambe. dhakhtarku wuxuu nagu yiri isdaji halkaa fadhiiso. nasiib daro Renan wuu dhintay. kadib dhakhtarku wuxuu noo sheegay markii 19 daqiiqo ay ka soo wareegatay xilligu uu dhintay in boos uu ka soo baxay ICU-ga. muxuu hore noogu heli waayay? bukaanada qaar waxay yimaadaan rugaha daryeelka caafimaadka sida kan oo kale, laakiin had iyo jeer uma diyaarsana inay la tacaalaan kiisaska daran. dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadku waxay sameynayaan wixii karaankooda ah. bukaanada qaar waxaa la siiyaa kursi sababo la xiriiro sariir la'aan. sanad kadib, cadaadis aan kala joogsi lahayn iyo tirada dhimashadoo sare u sii kacaysa, culaysku wuxuu noqday mid aad uga badan shaqaalaha qaarkood. Nunca vimos antes. weli maanan arag marxalad sidan oo kale argagax u leh. waxaa kordhay shaqaalaha xanuun dartiis shaqada uga fariisanaya. waxayna dareemayaan in hanaanka caafimaadka dalkani uusan qadarin kalkaaliyaasha. laakiin qaar badan ayaa weli sheegaya inay adkaysan doonaan inta loo baahdo. weli waxaa la aaminsan yahay in Brazil ay geli doonto xaalad tani ka xun. imkii ciyaaraha haddeen hore ugu soconana horyaalka ingiriiska kubadda cagta ee xalay toolele fooda Leicester Everton iyo Brighton ayaa gool la'aan ay isku soo barbardhacaan idhaahdee waa rajo darro weyn oo ku dhacday Everton. waxay quudareynayeen inay Champions League ku biiraan. dhanka kalena West Bromwich Albionska ayaa ku garaacay Southampton 3-0 garoonka Hawthorns ee West Bromwich ayaa iyagu safka xagga dambe ka haysta. koox qura ayaa ka hooseysa 8 dhibcood ayaa u dhiman si ay uga soo baxaan khadka hoose ama khadka cas ee kooxaha laga reebay horyaalka. UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaaraya waa horyaalada Yurub. Paris Saint-Germain oo ah PSG ayaa ku hogaaminaysa Bayern Munich 3-2. waa cagtii labaad ay isugu imanayaan iyadoo caawa la ishaleelayo. kooxdii weynada Chelsea ee London ayaa iyana Porto ay iswaajahayaan 2-0 ayaa Chelsea ku hogaaminaysa. arbacadaba weyn ogaan doonaa 4 kooxood cidda semi-finalka u soo baxday. xagga lacagtii kooxaha haddaynu eegno yaa ugu taajirsan kooxaha caalamka. kooxda Barcelona ayaa iyadu ugu horreysaba la leeyahay marka laga xagga qiimaha ee liiska ay qortay majalada Forbes magazine, halkaasi oo Real Madridna ay gashay booska labaad ama kaalinta labaad. Barcelona ayaa lagu qiimeeyey lacag gaadhaysa 4.7 bilyan oo dollar in qiimaheedu yahay, iyadoo kooxaha kalena ay ku jiraan 10ka ugu koreysa oo lagu qiimeynayay 2.9 bilyan. waxaa la leeyahay tani waxay sarakac 30% marka la barbar dhigo 2 sano ka hor, xitaa iyada oo muddo sanad ka badan lagu jiray koroonaha ayaa Barcelona lacagteedu kor u kacday. mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loola socdo warwarka cusub ee laga qabo isbedelka COVID-ka oo kolba isbedelaya waxa weeye in dhammaanba la baadho hidasidayaasha malaayiin nooc oo virus ah oo kala duwan. dalkan Ingiriiska ayaa hogaaminaya adduunka cilmi baadhistaasi oo waxaa sameynaya maxadka la yidhahdo Wellcome Sanger oo ka baxsan meel ku taala magaalada Cambridge ee dalkan Ingiriiska. wariyaha sayniska Richard Westcott ayaa la siiyey ogolaanshiyo gaar ah inuu arko waxa ay qabtaan culimadaasi saynisku. waa kan aadan maxamed cabdi saalimiin oo inoo soo jeediya. kani waa mid ka mid ah qolalka ugu muhiimsan ee laga heli karo noocyada cusub ee khatarta ah ee covid. qaar jooga Britain ayaa laga helay cudurka. qayb yar oo fayraskooda ah ayaa la keenay mid ka mid ah mashiinadaas iyada oo laga qaaday dheecaanka hidasidaha. waxay akhriyaan dhammaan DNA-da fayraska shakhsi kasta oo la yaqaan hidasidihiisa. laga soo bilaabo sanad ka hor waxa ay dejiyeen ilaa iyo hadda nidaamka ugu weyn ee la socodka hidasidaha ee adduunka. tijaabada shaybaarka ee usbuuca koobaad ilaa 20,000 ayaa la baaray toddobaadka koobaad UK oo dhan. tani waa sida ay ku arkeen noocyada kala duwan ee fayraska Kenti ee ku faafaya Ingiriiska. sida ugu dhaqsiyaha badan ee aan ku ogaano kiiska saxda ahi waa walaaca laga qabo kiisaska. mar kasta oo la qaado tallaabo dhaqso leh
waxaa lagu ogaadaa ciwaanada shakhsiyaadka si baaritaan dheeri ah loo sameeyo inuu sii faafo cudurka. waxaa jira kumanyaal nooc oo kala duwan oo fayraska SARS-CoV-2 oo dhammaantood leh hidde-side kala duwan. haddii laba qof ay qabaan laba fayras oo kala duwan dhexdooda kalama qaadayaan. runtii taasi waa macluumaad muhiima maxaa yeelay taasi waxay ku oggolaanaysaa inaad fahamto sida uu fayrasku u gudbayo goob. markaa waxay noqon kartaa inuu ka dilaco goob shaqo. haddii qof walba uu ku dhaco isla fayraska, fursadda ayaa ah inuu ku dhacayo goobta shaqada. laakiin hadduu fayrasku kala duwan yahay, waxay u baahan tahay inuu ka dhex dilaco bulshada dhexdeeda. markaa tani waxay la mid tahay nidaamka sahminta adduunka ugu weyn ee sida cadowgu isu bedelayo oo uu u faafayo. macluumaad muhiim ah ayaa loo baahan yahay haddii aad rabto inaad wax ka qabatid hirarka mustaqbalka ka hor inta aan tallaabo la qaadin. ugu dambeyntiina waxaan idinkaga tegayaa xeebta Brazil. waa xeebta Impema Rio de Janeiro. waa muuqaalo aad u qurux badan. sportigii ayaa la ciyaaraya oo dib u soo noqonaya inagoo in covid-ka laga xaraysnaa. waxa weeye hawada iyo biyahaba. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan idin leeyahay nabadgelyo.